sharciga koowaad oo aniga guusheeda sabab ah ama aniga ii fududeeyay inaan qof ma garanaysaa trader dhamaystiran aan noqdo qof ganacsada aan noqdo qof dhalinyaro horumar gaar 24/7 telefoon ku hadlay shukaas ku jira mid aan amal lahayn mid aan salaada tukan hadaa saaxiib la tahay ama for example markaan trading ka hadlayno mid stop loss badan hadaa saaxiib la tahay mid aan systemka waafaqsan saaxiib la tahay mid degdeg badan hadaa saaxiib la tahay maxaa sugaysaa asagoo kale ayaa noqonaysaa soo maxaa laga wadaa you cannot do this alone raadi dad aad ku xiratay haddaba qodobka ugu muhiimsan ee aan doonayo inaan ku sheego wax weeye dhamaystir waxa aad dhageysanaysid Soomaalida waxa lagu xantaa inay yihiin dad degdeg badan boqolkiiba 90 dad degdeg badan ayaana waxa dhacaysa marka trade baa la sharaxaya ama strategy cusub ayaa lagu siinaya ama cilmi ayaa lagu baraya isku day waxa lagu barayo ilaa dhamaadka inaad sugtid hal socod hada fiiri afar rule ayaan maanta dhan ka sheekeynayno anagu aan ku trade kareyna rule 1 baan niri rule 2 baan niri rule 3 rule 4 baan rule 3 ayadoo la marayo trading view waxa kula ordin sug be the last waxa oo dhan ka dhamaadaan فيديو يا كوتشر ويب سايت كسمعها فيديو سو قبسو داو دميسو وحبها تريدين فيديو كلو اردين ورقد يقنين كقرا marka nuxurka oo dhan ku galo practical kala sidoo kale dadka kale marka aad wax ka baranaysid ama uu qof ku sharaxayo ama aad macallin wax ka dhageysanaysid su'aashan aad macallinka weydiinaysid ama hadalkan aad la soo ordisid waxa laga yaabaa casharka soo socda inuu sheegi doono maxaa weeye marka qodob kale aniga guusheeda sabab u ahaa always waan dhageystaa barigii markii aan tagnay Rotterdam waxaanu safar baan wax ka galnay Sweden Rotterdam baan aanay oo Holland ah deetana event baan ka qayb galnay convention international convention company weyn 5 sano jiray ayaanu ka qayb galnay nin waxa joogay 22 sano ka shaqeynayay businesska aan 2 bilood ka hor bilaabay 22 sano ayuu wuxuu ka shaqeynayay business aan 2 bilood ka hor bilaabay markaas anigu waa 2017 ka fadhiyay maxaa sameeyay marka qofkaas oo kale marka aad la kulantid muxuu yahay hadafkaaga muxuu yahay qodob ku yaala muxuu xeelaha la doonayo inaad wax la yiraahdo aad maxaa la rabaa adigu dhan iskugu soo hartid tell me maxaa la rabaa adigu dhan iskugu soo hartid markaas oo kale dhageysi exactly 100% inaad dhageysatid baa la rabaa dhageysi dhuux marka macallimiintu ay hadlayaan oo ay zoomka ku jiraan oo wax sharaxayaan dhageyso dhuux qoraalka jooji hadalka jooji buugi qalin hoostaada dhigo ina wax mobile wax ku qoro sooji wax qoro waxyaalaha aniga caawiye boqolkiiba 90 waxayd ina wax dhageysto ina wax barto see wax loo bartaa YouTube tag wax dhageyso Zoom ku soo wax dhageyso qofka wadada kula kulmaysa dhageyso oo dhuux opinionkaaga adiga ha kugu koobnaado marka wax dhageysanaysa maxaa la rabaa marka nimanka conference ka joognay waxa laga yaabaa 20,000 oo ruux inay conference ka joogtay 20,000 ee ruux oo conference ka joogtay markay dadkaasi hadlayaan jibta meeshaas ka jirta qof wax qoranaya ama qof ka dhuuxaya ama qof hadlaya arkaysa soo maxaan kugu soo koobayaa marka qodobada aan kala hadlay muxuu ahaa waxa adigu aragtid adiga ayaa garanaya cayso waxa uu socoto waa taqaana hadafkaaga haduusan ku qornayn qoro deetana isaga cayso qodobka labaad muxuu aan ku sheegay sometimes waxa dhici karta problemku inuu adiga yahay ee laba tilaabo dib u deg oo isxisaabi oo fiiri waxa ah khaldisi mar walba qodobka saddexaad aan ku sheegay muxuu ahaa raadi saaxiib raadi rafiiq raadi qof kula fikir yahan ah oo safarka iyo guusha loo socdo ku raaca xaaskaagu noqon karaa walaalkaagu noqon karaa seygaagu noqon karaa dagaal tahay saaxiibkaagu noqon karaa qof aad internet iska baratay noqon karaa ugu dambeyntina waxa isku daydaa marka wax la sharaxayo ama marka qof ka cilmi badan hadlaya ama marka aad wax barashada ku jirto waxa doontaa aad isku dinaa dadka dhageystay intaas anigu aan hadda ku sheegay ama dhowrka qodob hadda aan ku sheegay waa my personal rules aniga ku sheegay sabab meeshaan ku oran lahaa hebel baa saan yiri ama Albert Einstein ma halka ka dhacay ama dadkana ku soo qaadan lahaa this is waxa aniga ii shaqeeyay maybe inay ku shaqeeyaan isku day insha Allah in waxa la yiraahdo aad adigu isla tartid isku day inaad cid kale la tartamo isku day inaad la tartanto si isku la tartami kartaa shalay meesha aad joogtay maanta ka fiicno shalay saaka meesha aad joogtay galabta ka fiicno sanadkii hore meesha aad joogtay maanta ka fiicno sida uga fiicnaanaysaa raadi waxa aad doonaysaa inaad ku fiicnaatid marka aad soo heshid raadiyaa kaaga fiican ka baro dhageyso u daba fariiso ixtiraamka iyo respectiga iyo qadarintu inaysan marna ka bixin meesha waxaan rajaynayaa in ay wax un macna leh idinku kordhiyeen kalmadahaas aan idin sheegay